wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta maamul goboleedka Jubbaland waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta maamul goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland soo dhaweynta wasiirka iyo wafdigiisa kadib ayaa waxaa loo gudbiyay xerada jaamacadda ee duleedka magaalada Kismaayo halkaas oo ay ku xareysan yihiin cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana markii wasiirka halkaasi uu gaaray uu salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan xeradaasi salaan iyo soo dhaweyn kadib ayaa waxa ugu horeyn goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya deegaanada Jubbaland mudane wasiir ku soo dhawow iyagoo u diyaara waajibaad kasta oo dalkooda la siiyo meel kasta oo dalkooda looga diro iyo shaqo kastaba iyagoo tababar qaatay noocyada kala duwan oo ciidamada tababarkiisa sida salaamaha gaardiga dabridka cadawga sida loo dilo traininka oo tacticada iyagoo tababarada kala duwan qaatay oo ay tababareen ciidamadan nala jooga African Union marka horna ciidamada KDF Kenya ay tababareen kadibna muddo dheer ciidamada Ethiopia ay tababareen tababaro kala duwan ay qaateen ciidankan oo ka kooban rag iyo dumar waxay diyaar u yihiin howl kasta oo loo diro ku soo dhawow mudane wasiir intaasi kadib wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa goobta khudbad dheer ka soo jeediyay waxaana uu ciidamadii halkaas ku sugnaa kula dardaarmay in dalkooda dadkooda iyo diintooda ay u shaqeeyaan isla markaasina ay xoreeyaan deegaanada ka dhiman maamul goboleedka Jubbaland isagoona ciidamada ka codsaday inay u samraan daruufaha yaryar ee ay xilligan dareemayaan waxaana uu sheegay in ciidamada la qalabayn doono isla markaasina ay ka qayb qaadan doonaan xoreynta dalka Soomaaliya waxaan halkaan saaka u nimid nasiib wanaag inaan aragno ciidanka halkaan jooga oo ka tirsan qaybta 43aad oo runtii aad iyo aad mataqaanaa u farxad gelinaysa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida guud ahaan sida mataqaanaa halkan ay muddo ugu jireen tababarna ay ugu qaateen tababarkiina uu yahay gabagabo lana xiri doono haddii alla idmo dalka dhisidiisa inta iyo difaaciisaba adinka muxuu ahaa u jooga haddii difaaca iyo dhisidda dalka aad u malaynaysaan dad kale inay inii dhisaan ama dad kale inay inii difaacaan adinkoo dhalinyaradii ah arrintaas waxaan u malaynayaa arrin fiican ama fikrad fiican inay ahayn in dalkaaga dad kale wakiilkaaga noqdo difaaciisa waa lagu kaalmayn karaa marar badanna waa idhi arrintaas waana lagu tababari karaa laakiin dalkaaga difaaciisa iyo nabadgelyadiisa adigaa mas-uuliyad kaa saaran tahay inaad dhisto inaad mataqaanaa difaacdo inaad dadka shacabka Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan markay dhib timaado aad u gurmataan ama mid ammaan ha noqoto ama mid waxyaabaha dabiiciga ama arrimaha dabiiciga oo yimaada oo dhaca ka hortagiisa ama ka kaalmayntiisa intaas oo dhan baad adinka la inii diyaarinaya ayaamaha dagaalka cadaw inaan eryaa ujeedadaydu waa ayaamaha dagaalka cadaw inaan eryaa محمد قاسم علي وحر TV عالمي ستار مقالة Kismaayo.